Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janalka Bro ICT IT. Casharadii ayaan halkaas kasii wada doonaa hadduu la yiraahdo. Waa tii Hyper-V-ga aan ku jirnay. Hyper-V-ga maaragtay sidaad window ugu show lahayd ayaan geli doonaa maanta casharada practical toos ah. Window kasta oo nooc kasta aad haysato, version kasta haysato ayaad ku shubi kartaa. Qaabkaad ugu shuban lahayd ayaa hadda geli doonaa hadduu la yiraahdo. Ila soco si toos practical. Okay, waxaan joognaa Hyper-V Manager ama Hyper-V Manager-ka ayaan joognaa saad u jeedaan. Window cusub ayaan ku shuban doonaa, laakiin window ka hor intaan ku shubin waa inaad maaragtay connection-kaaga ama adapter-kaaga soo samaystaa. Halkaa ka soo samaysanayso waa halkan, waa virtual switch manager-ka ayaa tegaysaa, kadibna create ayaa leedahay, kadibna waxaad ku qori doontaa meesha waxaa ku qori doontaa connection connect. Okay, kadibna private ayaa tegi doontaa, kadibna waxaa dhihi doontaa apply, kadibna okay. Marka connection-ka hadda waa noo samaysan yahay, waad u jeedaan meesha aan ku xiran lahayn. Okay, kadibna waxaad tegaysaa new window-ga inaad kusoo shifto markaa rabtid. New aa leedahay, virtual machine ayaa tegi doontaa, kadibna wizard-kan ayaa kusoo baxay noocana, kadibna next ayaa leedahay, kadibna window-ga magaciisa window noociisa ayaa ku qori doontaa ama windows aan dhahno magaca, laakiin version-ka aad ku shubanaysa hadhow arki doontaa. Marka labadan meel generation 1-ka iyo generation 2, 1-ka wuxuu ahaan jiray bis 32 bit inuu maaragtay taageeri karo, laakiin marka dambe waxaa lagu daray 64 marka 64 bit. Marka kan waa dooran kartaa, kan waa dooran kartaa. Marka kan wax dhan uu leeyahay, kan naftiisu wixii dhan waa leeyahay, waa lagu sameeyay. Marka laakiin waagii hore wuxuu ahaan jiray bis 32 bit inuu qaadayo kan, kadibna kan la dooran jiray. Marka hadda waa isku mid labadaba, kan labadaba ku shaqeynaya. Marka kaas aan doorana large version-ka kan ugu dambeeyay. Kadibna memory-gaas waa ugu filan intaas. Okay, kadibna waxaan leedahay next kadib waxaan leenahay connection adapter-kan ayaan ku xirnayn doonaa. Kadibna maaragtay halkan waa wixii aan soo sameynay. Size-ka memory-ga waa okay, waxaan ka bedelayno aan ugu filan yahay. Install later ayaan leenahay window-ga, install later ayaan dhihi doonaa. Next, kadibna finish. saad u jeedaan halkan ayuu noo soo galay window-ga, kadibna connect waxaan leenahay start running. Hadda uu kacsan yahay, laakiin window-gii nooma saarno saad ogtihiin. Marka window-ga ayaan okay. Marka waa tii aan dhahnay maaragtay window noogu shub later. Marka ugu dambeysa marka window-ga waa inaad soo saartaa, window-ga noociisa waa inaad soo saartaa. halkaas ayaa tegaysaa, right click, kadibna settings ayaa tegi doontaa, kadibna waxaad tegi doontaa CSE control-ka meesha ku qoran tahay. DVD ayaa dooran doontaa, add ayaa leedahay, image file ayaa leedahay, browse meesha oo noo yaala. Marka dabcan halkan ima yaala aniga, waxaan tegi doonaa computerkayga caadigan tegaya. Waxaan tegayaa C, kadibna halkan ugu jira Asus Mediatek, kadibna window 32 maaragtay bit ma rabtaa ama 64 noo qaad. Copy noo dheh, copy. Okay, kadibna waxaan geysan doonaa Hyper-V-geena ama maaragtay maxaan ku dhahaa server-keena ayaan dhigi doonaa. kan hoos naga dhig, kan sidoo kale
kan sidoo kale waxyaalo badan aan isku kacsan, sorry. Kadibna kan ayaan dhigi doonaa, halkan ayaan dhigan doonaa, marka halkan ayaan dhiganaynaa. Okay, waa la socotaa, wax yar waqti oo qaadanaya. Kadib waxaan ku laaban doonaa meeshii hoverby-ga ama hyper-v-ga, right click ayaan ku leenahay, kadibna waxaan leenahay settings, kadibna meeshii ay maaragtay file image-kii meesha aan window kasoo akhrisan lahaa ayaan dhigi doonaa, kadibna maaragtay si toos ayuu u shumaya. Okay, waa ka window inoo keenay, waa noo diyaar. Marka hyper-v-ga ayaan tegi doonaa, kadibna hyper-v-ga markaan tagno windows ayaan right click ku leenahay, setting ayaan tegi doonaa, kadibna waxaan tegi doonaa SCSI control, kadibna maaragtay DVD-ga ayaan tegi doonaa, DVD drive, kadibna add ayaan dhihi doonaa, kadibna file image file ayaan tegi doonaa, then waxaan tegi doonaa desktop-ka, waa tii aan soo dhignay desktop-ka, kadibna window-ga 64-bit ayaan dooran doonaa, Windows 10 maaragtay 64-bit. Okay, halkaas ayuu noo imaaday, waa noo diyaar ah. Kadibna apply aan leenahay, kadibna okay. Intaan okay dhihin, halkan idana maaragtay waa tii hadda file image filekii oo window-ga aan soo dhignay, laakiin waa inuu boot ahaan ugu horeeyaa, boot ahaan waa inuu ugu horeeyaa. Marka boot ahaan see marka ugu horumarsiinaynaa, halkaas ayaa tegeysaa, firmware ayaa tegeysaa, kadibna asaa u dambeeya waa ujeedaan maaragtay kor ayaa usoo qaadi doontaa si bootka ugu maaragtay ugu bilaabo. Okay, bootkiina waa noo diyaar, meeshuu kusoo kici lahaa. Okay, kadibna restart waxaan dhihi doonaa connect. Okay, waa kana window hadda maaragtay VMware-kan joognaa. Marmar intaan ciladan ugu keenaa, laakiin isla markii haddana waxaa dhihi doontaa control alt del oo meeshaas action aan tegi doontaa si uu usoo qabsado marmar. Waa ka kadibna enter any key ku leeyahay, enter ayaan taaban doonaa, ama any key you want, maaragtay meel kasta aad rabtid inaad taabatid ka taaban doontaa, inkastoo ay badanaa ay enterka dhag ay ku fududahay. Kadibna hyper-v-gayna ayuu dhexdiisa ayaa window ku shubanayna. Marka soo ma jeed window waa kana. Okay, English-kiisa bogdaa, qofkas luqadda oo maaragtay rabo ayuu meeshas ka saaranaya, waa taqaanintaas. Okay, next waa meeshaan see rabaan English wuxuu yahay luqadda Finnish-ka, laakiin waa next. Asana waa window-ga ku samaysan yahay ayaa waxa Finnish, laakiin to install marka tan waa taqaani step-dan install ay leedahay. Okay, waqti yar uu qaadanaya, kadibna wuu soconaya, wuxuu geynayaa. Marka halkan window-yada waa versiono badan ayuu leeyahay oo maaragtay iyagoo isla maaragtay 64 ayaa Windows maaragtay education, Windows 10 education N oo maaragtay loogu talagalay Europe iyo maaragtay enterprise caadiga ah oo maaragtay guud ahaan global ah. Marka enterprise aan dhahno ama education midka rabtid ayaa dhigi doonaa, kadibna next ayaan leenahay. Okay, waan aqbalay lesson-ka, kadibna kan u dambeeya qaadanaysaa, kadibna hard disk-gii ayaad ujeedaa maaragtay meesha kugu shubi lahaa, oo kadibna next. Okay, kadibna intaanu dhameynayaa
dabcan markaas windowga waa ku diyaar. servicekan dadka aada uga socdaan u yaqaanaan maadaama maaragtay muddo badan windows 7kii laga soo bilaabo windows 98kii dadka ay badanaa wax ay ku shubi jireen. marka dadka computerada maaragtay u leh maaragtay khibrad ama muddoba kusoo dhex jiray servicekan waa fududahay. marka kan waa feelashii dhan ayuu ku shubaya. marka feelashii dhan uu ku diyaarinaya windowgii dhan shaqada meesha uu ka sameyn lahaa oo maaragtay boqol markuu tago waa ku diyaar, kadibna wuu kugu shubaya. waqti aada waqti badan oo qaadanaya wax yar in la sugo waayo, waqti badan oo la qaadanaya. marka wakiilkan iska gasha okay 100 ayuu tagay waa ujeedaan. marka halkaas ayuu maaragtay labadaas kale ayaa u dhiman oo maaragtay update-ka iyo dhinaca ka maaragtay inuu sii diyaariyo kadibna wuu soo dhigaya. marka okay waxaan sugnaaba maaragtay windowga oo maaragtay inta yar stepskan dhow maaragtay stepeska ugu dambeeya kolley waa fahmi kartaan. okay kaas waa dhameeyey. kan ayuu dhameynayaa kadibna waxaa noo soo bixi doonaa si toos ayuu windowga noogu shubi doonaa. stepeskaas qofkas wuu fahmi karaa. marka kan kor aan kaco wax yar saddex daqiiqo kadib windowgeena ayuu noogu shubi doonaa. okay okay waa inoo diyaar windowgeena maaragtay almost waqti badan u qaatay laakiin lagama gudbi karo. waa qasab. okay waqti badan u qaatay laakiin ugu dambeyn windowgeena waa inoo diyaar waa ujeedaan. kadibna maaragtay wuu ku shubi maaragtay desktopka arki doontaa mar dhow. marka waxba maas wax yar ayaa ka haray. waqti badan oo qaadanaya installationku waa sidaad la socotaan. marka videoga kule waxyaalo badan aan ka jari doonaa laga yaabo inaad waa la socotaan ayaan filayaa. intaan wax sugayna dhan waan jarjaraya hadduu ila raado. laakiin wixii su-aalaha dib commentiga ayaa nagu soo gudbin kartaan hadduu ila raado. aada baad umahadsantihiin la socodka journalka. sidoo kale la wadaag insha allah maaragtay qof kastoo daneynaya technolojiyada inuu barto, arday ahaado, qof maaragtay arday hore ahaado, maaragtay qof technolojiyada daneynaya ahaado, qof business ku jiro maaragtay rabo technologies maaragtay inuu la socdo ahaado. insha allah maaragtay inaad la wadaagtaan ayaan rajeynayaa si maaragtay channelka uu kor u kaco insha allah. waad ku mahadsantihiin. ugu dambeyntii waa windowga noo soo dhigay maaragtay luqadda arabsiyaad dooranaysaa. Soomaaliya waa ku jira ujeedaa wadanka aad joogtid macnaha lamid tahay. maasha allah maaragtay aniga hadda waxaan joogaa Finland ama Suomi. markaad joogtid wadanka aad joogtid Soomaaliya hadaan joogi lahaa Soomaaliyan dooran lahaa. okay yes كله macnaa yes haddana wait headcanin wait markuu ku dhaw windowga waa inaad sugtaa maxaa yeelay shaqadii wada muuqti. okay haddana luqadda dooro wadanka aad joogto dooratay haddana luqadda dooro. marka yes kan waan ka gudbaynaa.
waa escape macnaha meeshaas oo haytaa escape ka gudub oo taqaanaan stepyada maaragtay luqad kasta oo hato windowga qofka hadduu mar ku shubi jiray stepsku dabcan uu fahmaya. Okay, okay, ugu dambeyntii waqti badan ayuu qaatay windowga, waa dareemeysaa markii uu wax ku shubayo. Meeshan waxaa leedahay escape, internet ma u baahnid. kadibna wuu ku shubaya. hadda maaragtay kana leedahay waa ka soco oo soco macnaa continue. Okay, kadibna waxaa sameysan doontaa magaca PC-gaaga, PC laptop PC iska dheh. Okay, next, kadibna passwordka ayaad sameysan doontaa, kadibna ku celi ismalahan la dhahay. Okay, kadibna su-aalo yar meeshaan lagu weydiin doonaa, kadibna waxaa kan dooranaysaa su-aasha sidee tahay mid aragtid. Iftaax magacayga iska dhig, kana magacayga ka dhig. si oo maaragtay u xasuustid hadduu ilaahaado. ugu dambeyntii windowgii waa noo diyaar. waqti badan oo qaadanaya, videogana dabcan waa dheeraanaya, laakiin waxaan rajeynayaa qof kasta inuu processeskan windowyada qaabka u shubanaysiin maaragtay kan waxaan iska qaadanaynaa kuwan maaragtay midkaa rabtid aad qaadan kartaa haddii rabtid, laakiin mid si oo noogu dhaqsado kan noo daar, kan ugu dambeeya dooro, kan ugu dambeeya dooro, kadibna windowgaaga oo shaashadiisa diyaar ah ayaa arki doontaa. Okay, marka dambe ugu dambeyntii waxaa lagu dhahay soo dhawow, hey waxaan dhameyn maaragtay sameyn doonaa windowgaaga inta ugu dambeyso. wuxuu qaadan karaa wax yar, monitor yar ayuu qaadan karaa. marka ugu dambeysa hadamin computerkaaga intuu maaragtay intaan wado, marka wayna sugtaa. ugu dambeyntii windowgii waa kan. amar dowlad mudaac ninkii diiday dabaal ayaa lahayn, marka waa in aan sugnaa windowga maaragtay intuu ku shubayo. windowgiina ugu dambeystii waa inoogu shubay windowga waa kan. Okay,
way la socotaan. halkaasna waxaa noo yaalay serverka asigana. markaa kicinaysa markasta markaa kicinaysa halkaas ayaad dooranaysaa, restart ayaa leedahay, kadibna saasaa leedahay. dabcan waa kanaan serverkii, kaasna windowgan u ahaa. marka casharkeena marka ugu dambeysa waxaan halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa, inkastoo muddo badan uu qaatay. dabcan share gareynta iyo subscribe-ka dhinaciina. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.